saasaan u bogaaniga waa kuwa badangala kulanti wacan daawade sheekadan la yaab kale weli ma ku soo gaartay nimanka qaar si ay dhaqaale u helaan wax walba ay u sameyn karaan nin lagu magacaabo Abubakar kana soo jeeda magaalada Jamalpur ee dalka Hindiya ayaa maalmo ka hor lagu xiray magaalada Burdala ee dalka Bangladesh kadib markii ay dacwisay xaaskiisii oo lagu magacaabo Ruusi Qanuun ninkan oo ay da'diisu tahay 45 sano jir ayaa loo haystaa khiyaano uu ku sameeyay xaaskiisa 25 sano ee la soo dhaafay waxa uu Abubakar guursaday 60 xaas waxaan xaaskiisii ugu horeysay uu guursaday isagoo jiro 20 sano xaaskiisii 60aad ayaa dacwada ka gudbisay kadib markii ay ku eedeysay in uu ka tagay sidoo kalena adeegsanaya warqado been abuur ah si uu iyada u guursado wargeyska ka soo baxa dalka Bangladesh ayaa ku soo warmay in markii Abubakar guursanayay isla xaaska hadda dacweysay uu iska dhigay nin aan horey u soo guursanin markii uu la aqal galay Ruusi Qanuun waxa uu sheegtay in magaciisu uu yahay Shaheen Alam waxaana gabadha aabaheed uu ka dalbaday in uu siiyo lacagta Ameerika Abubakar ayaa dalbaday lacag dhan $2,000 hase yeeshee aabihii dhalay gabadha ayaa ka diiday dalabkaas oo waxa uu siiyay $900 hase yeeshee markii la siiyay lacagta meherka ayuu ka dhuuntay gabadhii uu la aqal galay arintaas oo keentay in xaaskiisa ay u dacwooto saldhigga booliska ee Burdala sababta aan sidaas u sameeyay waxay ahayd in aan lacag ka helo guurka 59 xaas ee aan hore u soo guursadayna waxaan ka doonayaa in aan dhaqaalo ka helo ayuu yiri Abubakar ninkan oo xirfadiisu tahay macallinimo ayaa waxa gacanta ku soo dhigay booliska waxa ayna weydiiyeen xaaladiisa waxa uu sheegay 55 sano ee la soo dhaafay uu guursaday 60 xaas dhamaantoodna uu guursaday si uu lacag ugu helo saraakiisha booliska ee Islamabad ayaa sheegay in ninkan uu adeegsan jiray warqado been abuur ah iyo magacyo kala duwan mar walbana uu iska dhigi jiray qof aan guur soo marin waxa uu sheegay in magaalada lagu xiray uu haatan kula nool yahay 3 xaas iyo 7 carruur ah oo uu dhalay dalka Hindiya dadka haysta diinta Hinduuga waxay dhaqan ahaan aaminsan yihiin in gabadha la guursanayo ee ninka siiso lacagta meherka saasaan u bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin